webiga Shabeelle oo dhaxmara qaar ka mid ah deegaanada Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa nolol ahaan waxa ugu tiirsan bulshada ku nool deegaanadaasi kuwaasi oo badankood ah beeraley iyo xoolo dhaqato. gobolka Shabeellaha dhexe oo ka mid ah gobolada uu wax soo saar ka badan gobolada dalka Soomaaliya dhanka dalagyada kala duwan ayaa beeraleyda tacbashada beerahooda wuxuu ku tiirsan yahay biyaha webiga Shabeelle. saddexdii sano ee ugu dambeysay dadka ku nool gobolka Shabeellaha dhexe gaar ahaan beeraleyda iyo ganacsatada waxaa saameyn ballaaran ku yeelanaya laba arrimood oo webiga ku saabsan. fatahaad soo noqnoqotay oo webiga Shabeelle uu ka geysto degmooyinka Mahaday, Jowhar, Balcad iyo deegaano hoostaga degmooyinkaas badankood. fatahaadaas ayaa saameyn ballaaran waxay ku yeeshaan ganacsiga gobolka Shabeellaha dhexe iyo caasimada dalka Soomaaliya ee Muqdisho. fatahaadda ayaa sidoo kale galaafta dalagyada beeraha oo jooga badankood xilliga soo gurashada taasi oo niyad ku rida beeraleyda maadaama fatahaadda ay tahay mid joogto ah. arrinta labaad ayaa ah webiga oo noqda mid biyo maran lana waayo biyo cabaan xoolaha laguna waraabiyo beeraha. webiga Shabeelle oo hadda jooga xilliga biyo la'aanta ayaa webiga dhexdiisa waxaa ka muuqda geedo waaweyn kuwaasi oo qayb ka noqda fatahaadda marka uu webiga biyo badan keeno. meel u dhow buundada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe oo aan tagay ayaa indhahayga waxay qabanayeen geedo isku gadaamay bartamaha webiga. gudoomiyaha ururka haweenka degmada Balcad Mulki Cabdullaahi Islaaw iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Balcad Bishaar Maxamuud Nuur oo la hadlay TV Universal ayaa ugu baaqay maamulka Hirshabelle dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka in ay gacan ka geystaan wax ka qabashada dhibaatada webiga Shabeelle. bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ka codsanaynaa hay'adaha samafalka oo ka shaqeeya degmada Balcad anagoo ku hadlayna magaca maamulka degmada Balcad ah magacayga Mulki Cabdullaahi Islaaw ahne gudoomiyaha ururka haweenka waxaan ka codsanaynaa hay'adahan u baahanahay webiga oo isku xiro gobolka Jowhar ilaa Balcad dhaxdiis waxa ku jira qashin mar wal markay roobka imaado ee webiga soo buuxsamaan waxa badata fatahaad dadka biyaha oo dilaan webiga sidii Hirshabelle Jowhar darad waatay ku dhamaadeen webiga biyihii dadka soo fataameen ilaa buulo barte marka waxaan u baahanahay iyada webiga dhaxda qashinka ku aruursan waa ciid oo is aruursatay qashinkii oo qoriyay webiga soo qaatay in gudaha loo baahan laga bixinto hadda roobka imaanin amba webiga soo buuxsamin. waxaan ka codsanaynaa mar walbaba hay'adaha samafalka loo ka shaqeeya Balcad Jowhar inay webigaas ku dadaalaan ee ka baxshaan qashinka ku aruursan webiga dhexdiisa meesha biyo xireenka buundada qafti istaagta qashinka way u jeedaa soo buuxsamay qoriyo webiga biyaha soo qaadeen ciidi dhooqadii waa in laga nadiifiyaa biraha qashinka laga baxshaa webiga hadii markaas laga bixiyo dhulka la qodo oo si dheeraana webiga biyaha waxay noqon qaayaan keed laakiin tawsaan qashin uu laxkeed ma haleeno hadoo webiga soo buuxsamana fatahaad dadkii biyo way dhameynayaan marka waxaan ka codsanaynaa hay'adaha inay mar walba inta hadda imaanin inta roobka dhiman labada bilood ay noogu caawiyaan webiyaasha inay noo falaan gudaha qashinka naga bixiyaan mar walba ku soo celcelinay waa marka hadda jaanis baan u haysanaa webiga waa biyo la'aan kii joor waaba lagu dhaxlugeena kii Balcada waxay ku dambaysaa oo la soo deeyay sheeg kasteero biyaha lagu aruuriyay xabaadley marka sidaas aan ka codsanayaa samafalka degmada Balcad maxaa dhibaatay webiga ku qabaan waxaan ku qabnaa marka soo buuxsamo kala fatahaad iyo marka webiga gursadane beeri wanaag jagaayaan webiga qashinka saacilinay oo rabto in laga sameeyo laga nadiifiyo mar walba. bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan sida hadda aad u jeedaanba waxaan dul joognaa webigii degmada Balcad buundadii hore Talyaaniga sida ay u yaqaanaan reer Balcad buunta jajabtooy oo sida u jeedaanba maanta ay ka muuqdaan mataqaanaa ciidi iyo geedihii isqabsaday ay webigii xireen oo inta yaro biyihii hadda anfaawiga laga soo deeyay ilaa webigu waa guray beeraleyda iyo beerihii ay mataqaanaa anjageen ayaa xoogaa yaro anfaawiga biyo kayd ahaa ayaa maamulka Balcad uu soo deeyay xoogaadii yareeda hadda beerihii lagu waraabiyo hayaa webiga marka reer Balcad haddana waxaan dhib ku qabnaa webiga oo xilliga sidaan oo kale biyihii ay eber iska yihiin oo webiga mataqaanaa oo meel doon iska noqday oo geedaha meel walba xireen oo ay kala go'an yihiin markii xoogaa yar biyo ay yimaadaan webiga fatahaad uu sameynayo beerihii dhibka lagu tabcay ay hadana dib u go'ayaan marka waxaan codsanaynaa haddaan nahay bulshadii reer Balcad anagoo ku hadlaya magaca mataqaanaa ururka dhalinyarada degmada Balcad iyo dhammaan bulshaweynta reer Balcad oo ururada bulshada ka mid ah inaan waxaan codsanaynaa fatahaadaha webiga oo nagu sameeyo xilliga oo webiga biyihiisa ay yimaadaan beerihii dhibka ogaantoo lagu tabcay naga go'ayaan iyo webiga marka saano kale markuu biyo yareeyo oo ay mataqaanaa geedihii xilliga biyaha ay socdeen ay soo qaadeen meel walba ay xiran tahay biyihii dhexdooda
oo buuro ay ka samaysmeen waxaan codsanaynaa in geedahaas qashin bixin lagu sameeyo webigaas oo hay-adaha samafalka iyo dhammaan mataqaanaa cid kasta oo ka shaqaysta samafalka iyo horumarinta bulshada inay loo soo gurmado webigan qashin saar loo sameeyo nagala bixiyo geedahan meesha qabsaday si loo helo mataqaanaa biyo ku filan bulshada ay u hesho waxaa kale codsanaynaa mataqaanaa webiga xilligan oo kale marka hadsaan oo kale beerihii loo tabco oo ay dadka dhibkan ku tabcaan waxaa yaraada biyaha aaday u yaraadaan xagga gadaalayna amar ilaahayna ku yaraadaan dhibtaas yar marka beerihii lagu tabco waxaa dhacaysa hadda leh in webigii in yaroo biyo markuu keena ay beerihii si toos u go'ayaan oo webitaad uu samaynaya marka annaga reer balcad haddaan waxaan codsanaynaa in webigan shaqo laga qabto cid kastoo gacanka geysta qalab hertigta intii timaado qalab loo helo laga saara qashinka iyo geedaha webiga ku soo jabay laga saaro meelaha uu ka jilcayo ka soo jabaane caratuur laga sameeyo oo mataqaanaa laga caratuuro si aan beerihii ay dadkan ay ku dhibtoodeen masaakiinta oo dhibaato ay ku tabcaan jiilaalkan aysan ugu go'in ay dadkii hami u yeeshaan oo horumarkii bulshada u hirgalo webiga hadda sidaa sheegtay wasaq badanaa ku jirta geedo fara badanaa ku jiro oo biyihi celinaya marka waxyaabahaas oo dhan keliya waxay adina wax ka qaban u baahanaa mise bulshada haddii ay kala qaanto wax bay ka qaban karaan wallaahi waxa waaye bulshada qalab ma haysato waxay qaban kartaa geedkii gacantooda ay qaban kartaa iyo kii masaar ay ku goy karaan ay ka goy karaan ciidana wax yar badil lagu qaadi karaan laakiin bulshada haddii qalab lagu caawiyo hataa oo qalab loo keeno way qaban kartaa meelaha uu webiga kulligiis webigu mooda xirna meela ayuu ka xiran yahay geedo ku jabeen ama goolad ka yahay bulshada waxay u baahan tahay cid caawiso ama garab siiso mataqaanaa oo ay kaashatay u baahan tahay ma bulshada waxay u heelan tahay dhammaanteed inay wax qabsato oo reer balcad dhibaatada webiga fatahaada iyo weliba biyirada oo beeraha wax lagu waraabiyo lagaayo way soo noqnoqdeen marka haddii arrintan ay sii socoto maxaa ka dhalan karaa isleedahay wallaahi arrinkan oo biyo la'aanta ah webiga mar walba iska gurayo iyo waxaan hadday sii socdaan waxa rajabeel ayay bulshada macnaha hadda ka muujinaysaa dadka mataqaanaa hadda wax odoros waxay leeyihiin haddii xasaan xaaladda ku sii socoto webigan aan qashin saar loo samaynin biyaha gadaal sida ugu go'aan ay sii socoto in webiga dhanba la waaya ayaa mataqaanaa rajo ayay dadka qaarkood muujinayaan laakiin ilaahay bay dadkan kaashana dad islaam oo waaye rajadooda ilaahay ku xirayaan waxaanu hadda oo hamigeenna uu yahay in webigan qashinka laga saaro si ay biyaha u soo jiito oo mataqaanaa ugu keena buurihu ka keeni jiray webiga shabeelle ayaa wax dayactir helin tan iyo burburkii dowladdii dhexe dalka waana tan keenta fatahaadda soo noqnoqotay webiga ibraahim cali nuur barnaamijka bandhiga universal degmada balcad gobolka shabeellaha dhexe waagaag aad buu mahadsan yahay waryahayaga ibraahim cali nuur howlo shaqo u jooga degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana warbixintaasi nooga soo diray degmada balcad isagoo ku eegaya xaaladda webiga shabeelle oo xilligan biyari laga soo sheegayo iyadoo aad daawanayseen gudoomiyaha ururka haweenka iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada balcad uu ka sheekeynayay marxaladaha kala duwan ee uu soo mara webiga shabeelle oo hiiraan iyo shabeellaha dhexe dhexmara islamarkaana ka sheekeynaya xaaladaha beeraleyda ku nool degmada balcad oo xilligan iyaga qaarkood cabasho ka muujinayay xaaladda biyarida laga soo sheegayo degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe